حسيني سنة قرودي اللغات كوحدة دلسن كالجا يورد هيلث جروب runtii aniga farxad weyn ayay ii tahay waayo waa laba sano aan jiraa that's why aan u faraxsanaa maanta farxadeeda lama soo koobi karo waxaan rabaa inaan taariikhihii dalsan aan dib ugu laabano maadaama aan rabo inaan faahfaahin guud idinka siino dalsan horta waa xarun dhaqan ah oo laga barto dhammaan afka Soomaaliyeed hidaha iyo dhaqanka sidoo kale waxaa u dheer wacyigelinta bulshada ee ku dhiirigeliso dhammaan inay dadka bartaan afka iyo hidaha Soomaaliyeed taa markaan ka guudo tago farxadan aad u jeedaa aad ka qayb qaadanaysaa dhibaatooyin fara badan ayaa loogu soo maray marka waxaan rabaa inaan dib ugu laabto sidaa u jeedaanbo sabaxankaan yareen oo aan yaro faa'iidaysan muhiimadda ugu imaanay xafladan inta ay ka mid tahay sabaxankaan yareeno sidaa u jeedaanba dadka aasaasay dalsan waa inta ku xusan maantana iyaga ayaa sacab nooga mudan dhammaantood aan wada sacbin sidoo kale 2 sano hadda ka hor 14 Maarch ayaa dalsan la aasaasay waxay soo martay dhibaatooyin fara badan waxay soo martay marxaladooyin fara badan balse hadalkii ihiisigii laga lahaayay runtii waad arki kartaan cunuga yar markuu 2 sano jirsado oo ka soo baxay dhibaatooyinkii guurkii naaskii hooyadii nuujinaysay socod baradkii iyo kubkii hadda waxaan istaagsannahay lugihii aan ku istaagnay maanta aan ku dhaqaaqi karno waa waxyaabaha aan maanta aad ugu faraxsannahay aan mar waliba ku haminaya inaan aan gaarno dhammaan inta abaabushay wax walibana ha ka sareeyo waxa waaniga ah maanta haddaa aragto inaad horumar iyo nahiisa aad ka gaarto shay ha ka sareeyo hankaaga meesha aad joogtid waayo waa waxaad adiga aad horumar gaari kartid waayo dadka markaas aasaasnay inteena waxaan ku aasaasnay hal qol oo uu qof leeyahay ku aasaasnay mar waliba waxaan iskala gurmi jirnay aan fikradayna ku wadaagi jirnay sidee wax ka yeelnaa sidee wax ku bedelnaa waxay ahayd qol keliya markii dambe ayaan wada tashanaa balo sidaa xal looma naqatay anaga hadafkeena inta uu koobayay balmaan gurguradkii ku darna gurguradkii waxay inoo noqotay inaan yacni hoteelo sidaa u taqaanaan oo ani xisidiiga mudan horsabood hotel la yidhaahdo inaan dhammaanteena ku wada shirno oo sidee wax ka yeeli karnaa horumarkeena sidee u gaari karnaa sidee fikirkaan rabno oo ku dhaadhicin karnaa dadka sidee yacni bulshadeena u gaarsiin karnaa hiisii horumarka aan ka leenahay rajada aan maanta ka qabnay inaan afkeena hooyada hidaha dhaqankeena aan kusoo nooleyno maadaama joogno wadan qurba ah taas anaga ku duuragalayna ayaa meesha haddana ku wada shiri jirnay maadaama dhalinyarada soo badatay intaana halgamaagii ay ahaayeen xilligii ka dambeysay ardayda waa sii badanayaan dhalinta waa sii baranaysay qof waliba markaa u sheegta fikirkeeda lagu raacayay marka maadaama qolkii laga bartay maxaan samayn karnaa dee waxaan samaynayn weekendkii inaan ku kulanno hal hotel oo hoteelada ka mid ah aan anaga isfangarayno sidaasi muddo dheer kadib markaan kusoo soconay caqabado fara badan soo marnay si badan usoo kukufnay kadib waxaa ilaahayna suurtageliyey inaan yeelano hool oo aan fikradayna ku wadaagno oo dadkeenaan iyo waxeenaan dhan iyo wax waliba aan ku hagaajisan karno hoolka intaanan yeelan kadib waxaa halkaan horta xusidka mudan walaalkayga marna ka mid ah asaasayaasha magaca dalsan iskama bixin xilliga la bixinayo dhammaanteen waa wada joognay qof waliba waxaa la dhahay ha fikiro magaca keeno waxaa ka mid ahaa magacyadaas sidaa u xasuusto raja howlwade wax badan oo waxaa jirtay oo dad waliba oo fikirkiis keenaya laakiin markii dambe waxaan isku raacnay inaan qaadano magaca dalsan dalsan haddii dib loo raaco waa dal iyo san marka anaga
koobi karo laakiin waxaan ku faraxsanahay dhibaatooyinkaas faraha badan aan soo marnay in aan ku iloobi karno horumarkaan gaarnay aan hadda muuqdo intaan oo dad inay isku keentay horta dalsan waa intaas waa farxaddii ugu horeysay waa farxaddii aad ugu muhiimsaneed waxyaalaha dalsan qabato waxaa ka mid ah ciyaaraha dhaqameedka any gobol laga ciyaaro haddii ahaa any gobol Soomaali ka tirsan ayaa laga ciyaaro ayaa la isku baraa sidoo kale waxaa la isku baraa afka Soomaaliga insha Allah waxaan rajaynaynaa hadda sida u jeeda cuntooyinka Soomaaliya oo waxaan ka maqnaynaa halka lagu soo bandhigo dadka qaarkii laga yaabo inaysan aqoonin laakiin inaan u sharaxno oo midba markii kale u faahfaahino